halbeegyada lagu dooranayo hogaamiyaha oo islaamku uu aaminsan yahay yani qof kasta ee hogaaminaya ummad dawlad shirkad ganacsi waxbarasho arrimo bulsho iyo xataa qoys wuxuu u baahan yahay oo waxaa jira halbeegyo lagu doorto oo lagu kala aqoonsado qofka hogaamiyaha fiican ah iyo qofka hogaamiyaha fiican aan ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan baa ku soo dhawaada barnaamij aad iyo aad u qiimo badan barnaamijkaas oo ku saabsan halbeegyada lagu dooranayo hogaamiyaha oo islaamku uu aaminsan yahay yani qof kasta ee hogaaminaya ummad dawlad shirkad ganacsi waxbarasho arrimo bulsho iyo xataa qoys wuxuu u baahan yahay oo waxaa jira halbeegyo lagu doorto oo lagu kala aqoonsado qofka hogaamiyaha fiican ah iyo qofka hogaamiyaha fiican aan ahayn ereyga markay leenahay hogaamiye waa يعني شيء ugu muhiimsan oo dhaqaajiya ama lagu dhaqaajin karo ummadaha lagu dhaqaajiyo dawladaha lagu dhaqaajiyo shirkadaha ganacsiga lagu dhaqaajiyo sidaas darteeda qiimo badan ayuu runtii aad iyo aad ugu fadhiyaa waxa la yiraahdaa hay'ad hogaamin kama harto bimacna hay'ad kasto ee la dhaqaajinayo waxay u baahan tahay hogaamiye fiican oo runtii dhaqaajiya ay u fiican tahay ogeysiis hoyga xirfadaha iyo hogaamiyaasha mustaqbalka hagaaga kadib waxay qabanaysaa koras cusub oo leadership and management mataydaneeye soo booq xafiiska hagaaga kadib oo ku yaala laamiyaraha Soobe dhabarka dambe ee jaamacadda Simad ama la soo xiriir nambarada shaashada saaran hagaaga kadib hagaajiyaha hogaamiyaha mustaqbalka annaga haddii aynu nahay Soomaali waxaynu ognahay dalkayna iyo dadkayna Soomaaliyeed inaan dunida wax badan aan ka harnay sababaha dunida aan uga harnay waxa koowaad oo lagu tilmaamin karo waa hogaamiyaha oo macnaheedu ma waxa waaye Soomaalidu inaysan hogaamin fiican lahayn maya laakiin macnaheedu waxay tahay qof kasto positionkii oo munay lama dhigayo oo position kale ayaa runtii aad iyo aad loo dhigaya waxaan rabnaa barnaamijkan aynu u bixinay halbeega lagu dooranayo hogaamiyaha inaynu ku tilmaano oo aynu ku qayaxno waa maxay 10 sifo ama 10 tilmaamood ee ugu fiican ee laga fiiriyo qofka loo xulayo ama loo dhiibayo xil iyo position loo dhiibayo ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo mid waxbarasho ama ha noqdo mid ganacsi ama ha noqdo mid arrimo bulsho iyo qoys ha noqdee ilaa ereyga hogaaminta markaynu leenahay loolama jeedo kaliya dawlad loolama jeedo siyaasad loolama jeedo madaxweyne loolama jeedo ra'iisul wasaare loolama jeedo wasiir waxa loola jeedaa qof kasta ee dad hogaaminaya hooyadu waa hogaamiye qoyskeeda ayuu hogaamiye ka tahay aabuhu waa hogaamiye kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun can ra'iyatihi mafhuumkaas iyo fahamkaas guud ayaynu ka rabnaa ereyga hogaamiye markaan leenahay sidaas darteeda ayaa hogaamiyuhu qiimo badan runtii ku fadhiyaa bulshada Soomaaliyeed waa inay fahmaan yani marka ay wax kala xulanayaan markay dad kala dooranayaan war qofka maxaa lagu dooranayaa maxaa ku xulanayaa maxaa rabaa qofkaana inaan soo dhaweeyo qofkaana aan ku fogeeyo iyadoo laga fiirinayo hogaami sifooyinka ama tilmaamaha hogaamiyeed uu leeyahay oo islaamku uu qabo sidaas darteeda ayaa waxaan rabaa inaan halkan idigu soo gudbiyo 10 sifo ama tilmaamood oo laga fiirinayo hogaamiyaha wanaagsan runtii laga fiirinayo